salaam dhawaantiin magacayga waa yaama xagga dhiga daawanaysan oo yaama iyo maanta muuqaalkeen wuxuu ku saabsan yahay meelaha aad wax ka doonanayso ama meesha aad caawinaad u doonanayso ogow inta aan caawinaad aadan marka hore ka raadsanin yacni sheekadii hadda si kale kugu dhigo waxay tahay qofka aad caawinaad weydiisanayso iyo waxyaabaha uu ku sheegayo boqolkiiba boqol ha aaminin boqolkiiba boqolna ha ku kalsoonaanin aan hana aaminin hana ku kalsoonaanin waayo waxyaabaha qaarkooda good aadan ka soo bixi karin ayay ku galeyn kartaa inta muuqaalkay ugu dagelin waxa dhamaantiin idinkaga mahadcelinaya sida wanaagsan aad kanaalkayga subscribe u saaraysaan sida wanaagsan aad muuqaaladii u daawanaysaan iyo sida wanaagsan aad commentiga igu dhiirigelinaysaan dhammaantiin waa idinkaga mahadcelinaya meel walba caalamka aad joogtaan meel walba iga daawanaysaan maanta muuqaalkeena sidan ayuu ku bilaabanayaa sheekadan aan idinkaga sheekeynayo ma ahan sheeko aniga iska soo helay ama maxalla sheeko aniga iska soo aliftay waa sheeko aan aniga xaadir u soo ahay oo dhacday ani naftirkeyga godkan waa ku dhici rabay laakiin ilaahay qadarta inaan waxaas aan sameeyo soo sheekadaaneed waxay dhacday anigoo degan wadanka Jarmalka markaa Jarmalka deganaa waxaa ku jiray wax la dhahay Dublinkaas oo ah wadankii faraha ku leed ayaa xeer ku dul saaray ama xeerkaaneed wuxuu ka dhaxeeyaa wadamada Yurubta oo dhan soo marka xeerkaas aad ku jirtid waxaa sugaysaa intii wadanka aad joogto laga celinayo oo lagugu celinayo wadankii asalka faraha ku leed Dublinkaas ayaa la dhahaa soo markii magaalada Baadkisigan la dhahay ku noolaa magaaladaas ay degnaa soo maxal loo hay'ada dadka caaway kuwaas oo ka saacidaan in qofkaaneed Dublinka sidoo uga bixi lahaa ama xeerka Dublinka sidoo uga jabi lahay ka caawiya tusaale ahaan in lagu dhaho kiniisada lagu geenayo oo kale kiniisadaas aad galaysaa kiniisadaas waxaad ku xareysnaanaysaa kiniisadaaseeto inta kaaga dhiman muddada kaaga dhiman Dublinkaaga haddee tahay bilooyin iyo haddee tahay isbuuci ama haddee tahay sanadba soo marka kiniisada ma ahan inaad gaal noqonaysid oo diinta islaamka ka bixaysid kiniisada kaliya waxay kugu caawinaysaa in xeerkaaneeto maxkamad ay la korto oo xeerkaaneeto aad laga saaro ama laga dulqaado yani waxaan ku dul saaran adiga oo ah in aadan wadankii faraha ku lahayd markii hore ka timid in aan lagu celinin oo wadanka Jarmalka ka yeesho deganaasho ilaa sharci keeshana kiniisada way ku caawinaysaa soo marka taas way jirtaa wada kale waxa jirto ah inaad sheegatid inaad xanuunsan tahay yani maskixiin aad u xanuunsan tahay dhakhtarka waalida aad tagtid oo wali aad ka soo baartid yani stress inuu ku haayo adiga waxyaabo aad jirin filin aad jirin inaad awooratid oo filinkii dhakhtarka sidaas aad ku tagtid 2 isbuucna dhakhtarkaas aad ku soo jirtid dhakhtarkaasina warqad oo ku soo sameeyo oo ah hebel waa xanuunsan yahay yani xogaa maskixiyan ayuu xanuunsan yahay yani boola furtay amal soo marka wadadaas marka arab inaad dadka ka waani waxay tahay wadadan ee dhakhtarka caafimaadka isku tagin haddii aadan xanuun qabin waayo dhakhtarkaaneetu waa dhakhtar diiwaan galsan oo wadankaaneetu ka diiwaan galsan ama wadanka aad ku nooshahay dhakhtarkaas wuxuu qoro ay hay'adaha dawligeena raacayaan xanuunsanaa ama xanuunsanaan dhakhtarkaasieetu waxa uu ka soo sheego ay kugu qiimeynayaan oo marka maalmaha kamid ah aniga saaxiibadeyda waxa ku fikirnay warnimiyo sidee yani xeerkaaneetu Dublinka aan ku jabin karnaa يعني قاربا oo garaneen oo maxalla asxaab aheen oo ay kan xeerkaas ku jira baa kiniisad galay oo yani mudadii u dhaneed maxalla Dublinka xeerkii sidii uga baxay kadibna sharci lagu siiyay adiga marka waa tashana marka dhalinyar ahaan marka tashana qaarba waxay dhaniyo naagta oo isha kartaaska fadhida kartaas waxa la meesha dadka laga caawiyo oo maxalla qofka hadii luqadii uu garaneen warqadaha uu wato hay'adaha dawliga ee u soo diraan warqadaha looga turjumo yani warqadaas waxay ay tahay tusaalahan hadii warqad maanta kaaga timid maxkamad ay ku dhayso warqadaanadu waa lagu ganaaxaneetu waa inaa maxalla 10 cish lacagta aad ku bixisaa lacagtana waa noocaas hadii aad bixi weyso lacag noocaas ayaa lagu soo dalacayaa yani waxa waa meesha kartaas waxa la meel dadka laga caabiyo oo ah in qofkaaneetu waxa uu u baahan yahay asi iyo dawladda ayuu dhaxaysaa qofka iyo dawladda ayuu dhaxaysaa waana bilaash waa inaa waqti ka qabsataa oo kaliya wadan walba oo Yurubne waa ay leedahay soo marka naagta marka u tagna waxay dhahdeen niman yahow idinka xeerkiina Dublinka hadii maxaa la sheeg labadaas mid kaliya ay uga bixi kartaa ama kiniisadaas inay raadsataan oo kiniisadaha u tagtaan albaabka u gargaraacdaan oo alla kulantaan maxalla dadka markino customer service oo kiniisada ka shaqeynaa alla kulantaan oo arintiina u maxalla ha u bandhigtaan kadibna ayaka ku fiirinaya kiniisadaha oo maxalla gobolka aad degneen gobolka Bayr aad degneen gobolkaas aad degantiin dhan maxalla sheeg kiniisadii ka banaan boos ay ku fiirinaysaa kiniisada ay ku wacaysaa way ku diiwaan gelinaysaa kiniisada sidii ay kugu xareynaysaa ilaa hadhowti markii aad sharci hesho ka soo baxdidne ma ku soo saaraysa kiniisada soo marka arintaas markay noo sheegtay haddana waxyaabo kale noo sheego ku dhaanay kiniisada yani way cuntami weysa marka soo marka kiniisadii markay noo sheegtay haddana arintan ay noo sheegto yani in tago dhakhtarka xanuunka maskaxda in la tago waxay dhahdaan dhakhtarkaas ayaa tagaysaan waxa sheeganaysaan inaa stress idin hayo kaleeto inaa walwalka qabtiin habeenkii aadan seexan oo kaleeto oo aad dhafartiin yani waa adigoo maxalla sheeg caafimaad qabo caafimaad darro sheego oo gacantaada
bahalka maarka xiriga la isku daldala gacantaada qoorta ku gasho dhakhtarkana ha ku daldalo yacni hebel wuu waalan yahay adi isku saxiix yacni qalin qaado ku qor waa waalanahay oo caadi ah soo markii saas ay dhahday naagta ma soconaysaa ku dhahay mahee soconayso anima inaa buxa dhakhtar ku tagaya ku dhahaya 2 isbuuc ah rabaa meeshaan inaa waalanahay oo yacni oo stress ahayo yacni mental ill ah ii diiwaangeli oo yacni si maxkamadaha sharciga uga helo ma soconaysaa ku dhahay ani arrintaa ma sameynayay nimanyo ninkii sameynaya asigay u taalaa ani beecan waa ka baxay soo marka dhallinyaradii ila socotay anigana waa ay ka baxeen laakiin waxaa jirto aan sida magaalada aan ka maqlay nin dhallinyaro ah oo waxaasaytu sameeyey oo loo diiwaangeliyey maxalla sharci wuu ku helay laakiin waxaa loo diiwaangeliyey inuu qofkaaneeto maskixiyan u xanuunsan yahay maskixiyan inuu u xanuunsan yahay waa taqaanaa dhakhtar dawli ah oo maxalla ii sheeg certification u haasto ama aqoonsi u haasto inuu adigu maxalla inaa waalantahay inaada waalan uu ku kala saari karo haddii aa u tagtaa ku dhahday ka waran warniyo waxaa rabaa stress ay ahaa noocaasaytu waxyaaba su-aaluu ku weydiinaa marka adina ha iska dhahdo hadhowta lagu diiwaangeliyo cabdi waa waalantahay qof waalan waayo waxaa u baahan taha maxalla in lagu geeyo meesha dadka waalan lagu xanaaneeyo adigoo caafimaad qaba ma waalanaysaa mase ma waalanaysid waa waalanaysaa dabcan yani adigoo caafimaad qaba haddii aad tagtay meel dad waa waalan lagu haayo oo maxalla ay sheeg 2 isbuuc 14 maalin qol keliya lagugu soo xiro oo maxalla daaqada le cunto lagaaga soo taago oo lagu dhaho waxaa ku tijaabinaynaa inaa waalantahay in kale qasab waa waalanaysaa sax waa waalanaysaa soo marka maxalla ay sheeg dulucda sheekadeeda waxay tahay markii aad qurbahaaneta aad timaada ama meel walbo aad joogto xitaa soomaaliya haddaad joogtid meel xun waxaa ka raadinin ilaahay irsaaqadaada meel kale ayuu kuu soo dhigayaa meel xun waxaa ka raadinin ilaahay taladaaduu dhiibo oo yacni dadkana ha dhegaysanin dadka markaa dhegaysatid waa qof walba wax walbo kuu sheegaya qof walbo siduu asigu wax u arka maaragta ayuu kuu sheegaya waxaa laga yaabaa siduu asigu wax u arka saaxiibka haddii uu kuu sheego laakiin siduu asigu wax u arko adiga dhibaatadaada ama maxalla xal kuuma ahan ma fahante so ani maanta si ayaa wax u arkaa adina si ayaa wax u aragtaa isku fikir manin isku ra'yi manin laakiin waxaa laga yaabaa meelaha qaar inaa ka midow yani isku mid aa ka nahay maanta waxaa laga yaabaa adina si wax u xali kartid anigana si wax u xali karayo so marka adiha isku dayin ama yani yaa lagaa dhaadhicinin in qof kale siduu wax u arko inaa maxalla wax u samaysid taasna macnaheeda waxay tahay haddii maanta aniga sidaa wax u arka adiga go-aanka aa ku gaartid oo maxalla dhahayd okay wayaamaasaan ugu dhaha waa sameynayaa ogow taladaada kuma noolidee aniga taladeeda ayaa ku nooshahay soo marka ugu dambeyn mar walbo waxa aa samaynaysa ka fikir wax walba adigoo maxalla og warbixintaada aa haysatid kugu filan warbixin kugu fiican markaa wax walba aa ka haysatid sameeya ha degdegin wax walba dadka kaa waaweynkaa la tasho dad dhallinyaro la tasho yacni wax talo walbo waa loo hadal balsada maa ladhahaa talo walba u hadal badi maxalla u aruuri xog aruurin sameey xog uruurin markaa samaysid ogow xog uruurin markaa samaysid wax badan ayaa ogaanaysaa ha degdegin arrintaana waxay tahay waxa kuu sheegayo yani maribi qof maxalla dhalinyaro oo asigoo caafimaad qaba inuu dhakhtar tago la dhaho waa waalanta yani doctor xabeeb baa lagu geeya lagugu shabadeeyo haddii aad weli kanaalkaygaada subscribe saarin waxaa kaa codsanaya inaad subscribe aa saartid muuqaalkan like dheh share dheh comment kasoo dhiiba asxaabtaada la wadaag nabadgelyo